بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kusoo dhawaada ardayda duruusteennii ku saabsaneeday duruusu luqa alcarabiya liqayri naadiqiina biha, gaar ahaan juska koobaad darsiga 14 ayaan maanta ka bilaabaynaa insha allahu tacaala. haddii aad danaynayso duruustii hore oo aan soo dhaafnay, waxaad ka heli kartaa channelkan insha allahu tacaala. haddii aad nagu cusub tahay, waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtid oo aad subscribe saaratid channelkan, muuqaalkan aad like saartid sidii meel dheer oo u gaaro. aad iyo aad u mahadsan tahay. ardayda darsigaani wuxuu ku saabsanaa doonaa dhowr qodob oo muhiim ah. waxaan ku baran doonaa darsigan asmaada in loo adiifiyo damaa'irul mukhaatabiin iyo damaa'irul mutakallimiin in loo adiifiyo. damaa'irul mukhaatabiin waxaa loola jeedaa kuwa oo lala hadlaayo damaa'irta loo isticmaalo. mutakallimiinna waa kuwa iska hadlaaya. tusaale ahaan mukhaatabiin waxaa ka mid ah allahu rabbukum oo kale. allah waa rabbigiina. rabbukum, kumtaas ayaa waxaa la yidhaahdaa damaa'irul mukhaatabiin. kumtaas baa waxay tahay marka kuwa lala hadlaayo damiir loo isticmaalo. macnuhu wuxuu noqonayaa allahu rabbukum, allah waa rabbigiina. annabiyu muxamed sala allahu calayhi wasalam annabiyukum oo kale. nebi muxamed waa nebigiina sala allahu calayhi wasalam. waxyaabaha darsigan aan ku baran doono waxaa ka mid ah ayu waa ismu istifhaam, waa su'aal weydiin. caaqil iyo ghayru caaqil labadaba waa loo isticmaalaa. isimka ka dambeeyane waa mudaafu ilayhi, waa la hoos dhigayaa. iyadoo caaqila waxaa ka mid ah ayu tullaabi kharaja. iyadoo ghayru caaqilana waxaa ka mid ah ayu shahrin haadaa oo kale. sidoo kale ficilka maadiga markii loo tiirinayo yani kuwa iska hadlaayo damiirkooda iyo kuwa lala hadlaayo ayaan baranaynaa. sidii dahabnaa oo kale waa mutakallim. dahabnaa waan yani tagnay. kharajnaa waan baxnay. dahabtum kharajtumna waa mukhaatabkii weeyaan, kuwa lala khidaabayo. waxyaabaha aan ku baran doono darsiga waxaa ka mid ah magaca oo cajamta ah inuu yahay mamnuucun min asarf, inuu maalayinsarif yahay oo aanan la tanwiininin oo laba shaqal aanan loo ogoleen. intaasaa marka darsiga ugu muhiimsan. waa gudagelaynaa marka. bismi illaahi nabda. الدرس الرابع عشر درسiga 14. الفتية iyo waxaa sheekaysanayo xaamid. dhalinyaro iyo xaamid baa sheekaysanayo. الفتية dhalinyaradii baa marka bilaabeen oo waxay dhaheen assalaamu calaykum. xaamid wuxuu dhahaa wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh. axad ulfitya dhalinyaradii mid ka mid a baa wuxuu yidhi kayfa xaaluka yaa cammi, adeerkayow sidee tahay, xaalkaadu waa sidee? xaamid wuxuu dhahay anaa bikhayrin walxamdu lilah, anigu khayr ayaan ku suganahay, allah ayaana mahad iska leh. kayfa xaalukum, xaalkiinu waa sidee? man antum, yaa tihiin? waa ka kayfa xaalukum waa yani kuwa lala hadlaayo damiirkaasaa loo isticmaalaa. jamac ee lala hadlaayo rag ah gaar ahaan kayfa xaalukum aa la leeyahay. man antum, yaa tihiin? axaduhum mid ka mid a dhalinyarada wuxuu yidhi naxnu abnaa'u doctor muusa, waxaan nahay wiilashii doctor muuse. xaamid wuxuu yidhi ahlan wasahlan wamarxaban, soo dhowaada. intaan waa marxab, waatu soo dhoweyn weeyaan. abuukum sadiiqii, aabihiin waa saaxiibkay. ayna camukum asheekh ciisa, aawa adeerkiina sheekh ciise. axaduhum dhalinyarada mid ka mida baa wuxuu yidhi huwa mariidun, wuu xanuunsan yahay. huwa al'aana fi lmustashfaa, iminkana wuxuu yaalaa isbitaalka. xaamid wuxuu dhahay shafaahu allahu, allaha caafiyo. man haadihi tifla, cunugtan yarinayay tahay? allatii macakum, oo micigiina ah. axaduhum midkood baa wuxuu yidhi hiya ukhtunaa, waa walaashanaga. xaamid wuxuu yidhi masmuhaa, magaceed? axaduhum dhalinyarada mid ka mid ahaa wuxuu yidhi ismuhaa leyla, magaceeda waxaa la yidhaahdaa leyla. xaamid wuxuu dhahay ayna baytukum aljadiid, aawi gurigeena cusub? axaduhum dhalinyarada mid ka mid ahaa wuxuu yidhi baytuna aljadiidu, gurigeena cusubi qariibun min almadaari, wuxuu u dhow yahay garoonka ayuu u dhow yahay.
xaamid wuxuu yidhi a antum fi lmadrasati athaanawiya ma waxaad dhigataan dugsi sare axaduhu mid ka mid ahaa wuxuu yidhi laa maya naxnu biljaamica waxaan dhiganaa jaamicad ana fi kuliyati alhandasa anigu waxaan dhigtaa kuliyadda injineerka wa maxmuudun fi kuliyati atibbi maxmuudna wuxuu dhigtaa kuliyadda caafimaadka wa ibraahimu fi kuliyati ashariica ibraahimna kuliyadda shareecada wa yuusufu fi kuliyati tijaara yuusufna wuxuu dhigtaa kuliyadda ganacsiga saasay marka u kala dhigtaan yani kuliyadaha xaamid wuxuu yidhi man dhalika alfataa midkaa dhallinyaradan ayuu yahay alladii fii sayaaratikum kaasoo ku sugan gaarigeenna maxamuud wuxuu yidhi huwa zamiilii waa zamiilkayga xaamid wuxuu yidhi min ayna huwa halkay ka soo jeedaa maxamuud wuxuu dhahay huwa min inkiltara england ayuu ka soo jeedaa xaamid baa wuxuu yidhi masmuhu magaciis maxamuud wuxuu yidhi ismuhu wilyamu magaciisa waxaa la yidhaahdaa william ayaa la yidhahdaa xaamid wuxuu yidhi a muslimun huwa ma muslim baa maxamuud wuxuu yidhi laa maya huwa nasraaniyun waa kirishtan abuuhu ustaadii aabihiis waa macallinkayga ismuhu addoktor idwardu magaciisana waxaa la yidhaahdaa doctor idwardu ayaa la yidhaahdaa yahdiihim allahu ila alislaam islaamka allah u hanuuniyo xaamid wuxuu yidhi adahabtum ila almustashfaa liziyaarati cammikum isbitaalka ma aadeen si aad u soo booqataan adeerkiina yuusuf wuxuu yidhi nacam dahabnaa haa waan aadnay waa kaa darsiga marka halkaasuu ku dhammaada tamaariin qaybta koowaad ajib can alas'ilati alaatiya su'aalahan soo socda ka jawaab waaxid man antum yaa tihiin waxaad ku jawaabaysaa naxnu abnaa'u addoktor muusa doctor muuse wiilashiisii baana waa kaa naxnu waa damiir marka yani jamaca iska hadlayaba isticmaalo hal qof oo nafsadiisa weyneynayana wuu isticmaali karaa labo ayna baytukum gurigiina halkee ku yaala waxaad odhan kartaa baytunaa qariibun min almadaar baytunaa aa laga rabaa damiirkaasaa laga rabaa baytunaa inaad dhahdid gurigaynu wuxuu u dhow yahay garoonka saddex man rabbukum rabbigiinu you yahay rabbuna allah maa luqatukum luqadiinu maxay tahay luqatunaa alcarabiyatu luqatunaa alsoomaaliya shan ayna madrasatukum madrasadiinu halkay ku taallaa waa ka madrasadaynu waxaa odhan kartaa madrasatunaa fi xayi yaakshiid oo kalaa dhigi karta waxay ku taallaa xaafadda yani kada oo kada markaasi meeshii madrasadaada ay ku taallaa ku jawaabi kartaa lix a antum muslimuuna ma waxaad tihiin muslimiin todobo waxay noqonaysaa marka nacam naxnu muslimuuna muslimiin ayaanu nahay todobo a fii baytikum gurigiina ma waxaa ku yaala xadiiqatun beer nacam fii baytinaa xadiiqatun sideed a cindakum sayaaratun gaari ma leedihiin nacam cindanaa sayaaratun sagaal ayna mudarrisukum aawa macallinkiina waxaad odhan kartaa dahaba ila almudiiri maamulaha ayuu aada mudarrisunaa ka bilow mudarrisunaa dahaba ila almudiir toban a antum mudarrisuuna adinku macallimiin miyaa tihiin nacam naxnu mudarrisuuna tamriinka labaad iqra' waktub akhri oo qor waaxid naxnu muslimuuna annagu waxaanu nahay muslimiin allaahu rabbunaa allah waa rabbigeenna walislaamu diinunaa islaamku waa diinkayna wannabiyu muxamedun sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed sala allahu calayhi wasalamna rasuulunaa waa rasuulkayna waalqur'aanu alkariimu qur'aanka kariimkaana kitaabunaa waa kitaabkayna waalkacbatu kacbaduna qiblatunaa waa qibladayna waalcarabiyatu luqadda carabiguna luqatunaa waa luqadayna labo ayna mudarrisukum yaa ikhwaan
عاو معلنكينا ولا ليال خرج الآن من الفصل وذهب إلى المدير خرج الآن هذا يوحو كبح من الفصل فصلك وذهب وحونا آدي إلى المدير سدح في أي شارع بيتكم وددك يا لا قرقين بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة قرقين وحوكو يا لا ودد كورتا على محكمة أبونا صديق عمكم أبهن وأديركين صاحبكيس أنتم مدرسون معلمين مياتهين لا نحن أطباء وحانهاي رقاتير لح أأنتم أبناء المدير مامورها ويلشي سمياتهين لا نحن حفدته وحانهاي حفدديسا حفدد وولد الولد واكا ilmaha adiga aad dhasho kuwa ay sii dhalaan baa waxa u tahay xafado xafida u tahay marka nahnu xafadatuhu saasa loola jeeda todobo madrasatuna kabiratun madrasadaynu waa weyn tahay wa madrasatukum saghiratun madrasadiinuna waa yar tahay sideed لنا حديقة جميلة في تلك القرية وحان لنا هيبير قرح بدن أو قرحون في تلك القرية تولداس سقال أخونا طالب في كلية الطب ولكن وأرضي لكت كلية عافماتك طبعا أنتم أطباء موحاتين دغاتير بعضنا أطباء قاركين ودغاتير وبعضنا مهندسون قاركين إنجنيرو طبعا يكو الله ربنا وربكم الله وربنا يا ربكينا طبعا يلا أين ذهبتم يا إخوان هل كده أدين ولا ليال ذهبنا إلى السوق سوق أيان أد تمرين كسدحاد أضف وحدوتي رسالة أسماء الآتية أسماء السوسعته إلى الضمائر الضمير أتيري كما هو موضح في المثال تسألك وبتشدلوا وعدي ضمائر مرنا ومخاطب مرنا ومتكلم بيتنا لوسية مثلا مركا مخاطب أكدي يسيد كولا لحظة وحالة هاي بيتكم قريجين مركا متكلم كدي يسيدنا وحالة هاي بيتنا قريجين أمكم هو يدينا أمنا هو يدينا عم أديروا عمكم أديركينا عمنا أديركينا صديق وصاحب صديقكم صاحبكينا صديقنا صاحبكينا واكا مدرسة ومدرسة مدرستنا مدرستكم مدرستنا أخت وولال أختكم أختنا لغة ولغة لغتكم لغتنا دين ودين دينكم ديننا أب وأب أبوكم أبونا أخ وولال أخوكم أخونا تمرين كأفراد وحلقوا بريا أي دي هدايا عن رهني عشر كي نوغو إما دونتا واكا اقرأ أخري أي يوم هذا أي مركة السؤال ويدين وايه عاقل غير العاقل ولا استعماله اسم ككدن بيان ومضاف إليه والهوس لغاية انت فهم بس وحان لنا مركة أي يوم هذا مالن كان ومالن كي هذا يوم السبت مالن كان ومالن كسبت ده أي شهر هذا بشان وبشه هذا شهر رجب بشان وبشي رجب أي كلية هذه كلية دان وكلية ده هذه كلية التجارة كلية دان وكلية ده جنعسيغا في أي مدرسة أنت مدرسة دي لغتادك أنا في المدرسة المتوسطة وحانك تادكسي دحي من أي بلد أنت يا أخت مقالة ديك سوجي دادك ولا شيء أنا من اليونان وعنك سوجي دا غريك تمرين كشنانا وحالوغو بريا مقاعية عجم كيه وعندهيني لما صرفيو oo yani tanwiin looma ogolo aan dhehina laba shaqal looma ogolo laba god laba kordhig laba hoos dhig iqra akhri waktub qor marka kulli hal shaqal ay leeyihiin sida kaaga muuqato wax laba shaqal kuma jiraan williamu kamida williamu waa magac oo cajam maxaa laga wadaa
magacan carab ahayn baa loola jeedaa. williamu, edwardu, londonu, bariisu, bakistaanu, istanbulu, ibrahimu, ismaaciilu, isxaaqu, yacquubu, ayuubu, sulaymaanu, daawuudu, yuunusu, idriisu, jibriilu, mikaa'iilu, fircawnu. kulli waxaa weeyaan cajam weeyaan. tamriinka lixaad iqra' ilmithaal tusaalaha akhri ثuma xawil iljumala alaatiyata mislahu kadib jumladaha soo socda asigoo kale ka dhig. waa ficilkii maadiga ahaa markii loo tiirinayo damaa'irtii. marka anta dahabta ila almadrasati adigu waxaad aaday madrasada. anta dahabta waxaad aaday ila almadrasati. jamac kolkii laga dhigo waa lagaga shaqeeye fiiri. antum, anta maxay isku bedeshay antum. dahabtane dahabtum ila almadrasati. macnuhuna wuxuu noqonayaa antum idinku dahabtum waxaad aadeen ila almadrasati madrasada. anta kharajta min alfasli adiga waxaa ka baxday fasalka. antum kharajtum min alfasli fasalka ayaad ka baxdeen. anta jalasta fi lfasli adigu waxaa fadhiisatay fasalka dhexdiisa. antum jalastum fi lfasli. ayna dahabta ya akhi ayna dahabtum ya ikhwaani. limaada kharajta min alfasli ya waladu fasalka maxaa uga baxday wiilyahow. limaada kharajtum min alfasli ya awlaad. mumtaaz. alkalimaat aljadiida kelimadaha cusub. alxafiid baa ka mid a. xafiid marka waa lagu barayaa waxaa lagu dhahay ibnulibni waa ka ibnulibni wiilkaada wiilkiisa la yidhaahdaa. wiilkaada wiilkiisa ayaa waxaad yani u tahay xafiid. waayahay ow amasa ibnulbinti gabadha inankeeda waa ka. ibnulbinti marka ayda waxaa la dhahaa sheekhu hadda xafiid buuna dhahaa laakiin sibdi baa la yidhaahdaa. hadda yani xasan iyo xasan oo kale can xasan radia allahu canhu sibdi rasuulillah. sibdiga marka waxaa waaye gabadhaadu wiilka ay dhasho baa sibdi u taha marka way kala dugan yihiin. ibnulibniguna waxaa waaye xafiid. ibnulbintiguna waa sibdi. jamcuna waa xafada. alkuliya baa ka mid ah. jamcu waa kuliyaat waa kuliyayaal. kuliyatu tibi waa kuliyada caafimaadka. kuliyatu shariica waa kuliyada shareecada. kuliyatu lhandasa waa kuliyada engineering. kuliyatu tijaara waa kuliyada ganacsiga. almaxkamatu waa maxkamad. alakhu waa walaal. jamcu waa ikhwa iyo ikhwaan. ikhwa waa lagu jamciyaa. ikhwaanna waa lagu jamciyaa. ahlan wasahlan wamarxaban waa soo dhoweyn. alyunaan waa gariig. nasraaniyun waa kirishtan. jamcuna waa nasaara. albaladu waa mufrad. jamcuna waa bilaad. halka ayuu darsiga noogu dhammaaday 14aad. waxaan ka codsanaynaa inaad sii sheergaraysid muuqaalka naguna soo biirtid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.